culimada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo habeennimadii xalayto kulan ballaaran iskugu yimi masaajidka Madiina ee bartamaha magaalada Burco ayaa waxay baaq nabadeed u direen beelaha dirirta ku dhex martay deegaanka Dararweyne ee degmada Ceelafweyne gobolka Sanaag. Culimadan kala duwan ayaa qodobo muhiim ah u soo jeediyay bulshada ku dhaqan deegaankaasi iyo sidoo kale xukuumadda Somaliland waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan. qodobka koobaad waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay culimada gobolka Togdheer beelaha colaadda ku dhex martay deegaanada hoos yimaada gobolka Sanaag in Ilaahay ka baqaan xusuusnaadana khatarta iyo dambiga uu leeyahay daadinta dhiigga qofka muslimka. lambar 2 waxaan ugu baaqaynaa walaalaha ku dagaalamay gobolka Sanaag inay joojiyaan colaadda shuruud la'aan waxaan codsanaynaa in khilaafka jira lagu xalliyo wada hadal. qodobka 3 waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa odayaasha dhaqanka culimada diinka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshooyinka inay kaalin weyn oo mugla ka qaataan sidii loo joojin lahaa colaadda iyo dhiigga daadanaya ee dadka walaalaha ah. lambar 4 waxaan ugu baaqaynaa mar kale waxgaradka odayaasha dhinacyada is haya inay wax kasta u huraan joojinta colaadda waxaan ku ridhigelinaynaa dhinacyada inay dhexda u xidhaan sidii loo gaari lahaa nabad waarta oo u dhaxaysa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaanada hoos yimaada gobolka Sanaag. lambar 5 waxaan dhinacyada colaadda dhex martay xusuusinaynaa dagaal uusan lahayn faa'iido isla markaana dagaalku yahay mid dad ehel ah ay ku waxyeeloobaan. Soomaaliduna waxa ku maamaadaa colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho. lambar 6 culimada gobolka Togdheer waxay taasi u duraysaa eheliyadii iyo qaraabadii dhammaan dadkii ku geeriyooday dagaalka ka dhacay deegaanada hoos yimaada gobolka Sanaag kuwa dhaawacana waxa Ilaahay uga baryeen Ilaahay caafiyo. lambar 7 waxaan ugu baaqaynaa cid walba oo nabadda jecel inay ka qayb qaataan joojinta colaadda si loo gaaro dib u heshiisiin dhaba sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa nagu farayo innamal mu'minuuna ikhwatun faaslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamuun. ugu dambayn qodobka 8 waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay mowqifka ka qaadato sidii loo soo afjari lahaa colaadda ka aloosna in muddo ah. musiibada halka ka dhacday ee soo noqnoqotay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka damiyo dadka ay ku dhacday iyo dadka kale wixii kale ka damqanayaba inuu ka damiyo ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryayaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa dad badan wax badan baa socday dhibaato badan baa ka dhacday aanay inta ka sii kordhinay halka isku taagtaan Ilaahay ka baryayaa. anigu waxaan si gaar ah ula hadlayaa waxaan baaqa ugu jeedinayaa ula hadlayaa waa dadka aniga lodkayga awey dagaal kasto beeladoo dhaca waxa laga yaabaa in badano aniga lodkayga inay wax ka hogaaminayaan oo markay iska cibaadeysan lahaayeen Ilaahay dartii uu soo noqon lahaayeen wixii hore ay galeen ay Ilaahay uga toobad keeni lahaayeen inay meel yar oo laba ina isku dhexbaaday kuwa horbooday ay noqdeen. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu aqli idin siiyo Ilaahay labada qolo deegaanka isku dilaaya inuu aqliga u soo celiyo oo wada aragnimadooda iyadoo ay wada arag noqdaan Ilaahay inuu aqliga soo dadka ayaan Ilaahay ka baryayaa. haddii nabad la waayo nolol jiri mayso. Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa waxa uu ku yiri markuu ka hadlay qisadii labadii ilmo nabi aadam ay istilay waxa lagu soo gabagabeeyay min ajli dhalika katabna ala bani israa'il annahu man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a. وحال سبحانه وتعالى tilmaamay qofku naf hadii uu dilo xaq darro uu ku dilo wuxuu ka dhigan yahay sidii qof dadkoo dhan laayay fasaadka iyo dhibka uu geysanaya awgeed hadii uu naf badbaadiyana inuu dadka badbaadiyay bay ka dhigan tahay sida awgeed baa Allah subhanahu wa ta'ala qisaasta u jiday walibana lagu tilmaamay inay nolol tahay walakum fil qisas hayaa markaynu ka hadlayno dhiigga muslimka xaq darro in loo daadiyo sharcigu meel aad u adag buu dhigay waxaynu u baahannahay inaynu qabyaalada la dagaalano qobqobka iyo nacaybka iyo cuqdada iyo xaalad abuurka la faafinayo in waxa weeye tanoocaas aad iyo aad looga digtoonaado waxaynu u baahannahay dhibku halkuu ka soo baxaya inaynu cilaajino walaaltinimada iyo kalgacaylka iyo wax wada qabsiga iyo in la isu baahan yahay iyo horumarka in laga shaqeeyo. shaqaaqadaas ka soo cusboonaatay aaga Dararweyne iyo Ceelafweyne iyo aagagiisa runtii waa masiibo qaran oo soo noqnoqotay waa arin markasta oo ay timaadaba in badan oo dadka muslimiinta ee abriyada ah ee aan waxba geysan ay ku nafwaayayaan waxa kala duwan dhiigga muslimka daadintiisu marka ay tahay qof iyo qof dilay marka meeshii walba ama goobtii walba lagaga tagayo tobanaan qof
oo muslimiin ah mujtamac ahaan dhib intaas ay noogu filayd mar labaad inay soo noqoto waa nasiib daro waxaan xoojinna oo aan ku celcelinaa ha shaqeeyo caqliga wanaagsan ha shaqeeyo arrintaa qof walba kaalinta kaga aadan ha qaato qofka walaalayaal isagoo miyir qaba oo soo jeeda ku dhiiranaya qof mu'mina oo walaalkeeya oo macsuum oo dhiiggiisu xaaraan ka yahay inuu ku dhiirado oo uu dilo oo dhuuggiisa daadiyo oo nafta ka gooyo qofkaasi muxuu arrintaa dhaafsaday muxuu isagu helayaa qofkaasi ficilkaa uu ku kacay wuxuu ku bedeshay aakhiradiisii iyo adduunkiisiba inuu burburiyey khasira addunya waalaakhira xaqadu waa sidaas waxaa markaa dawadiisu ay tahay war dadka muslixiinta in ay xooga saaraan dadka in diinta la gaadhsiiyo oo dacwada la gaadhsiiyo oo diinta la baro dadka ummadda masaakiinta ah ee abaaraha iyo saxariirku soo daashaday dabka ku horinaya waa in laga qabta oo laga xanuujiyaa ummadda inta kale oo hadday xadhig noqoto maqaysaana la mariyaa guud ahaanba shacabka Somaliland culimo codkar cuqaal iyo odayaal kala duwan ayaa muddooyinkii u dambeeyay baaq nabadeed u dirayay beelaha dirirta ku dhex martay deegaanka Dararweyne ee degmada Ceelaf Weyn kuwaasi oo ugu baaqayay inay dagaalka joojiyaan maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto Ariel TV Burco